السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaabo waa Amri tabtaan kana daawanaysa firixsi hadana ku cusub oo magaca soo dhawaada arrin oo sidoo kale wax ka baxso ay tabsano maanta waxaan soo booqanay hospital MEDICOVER leeyahay insha Allah waxaan rajaynayaa inaan interview ka qaado director hospitalka kale oo Krishna Kiran la dhaho wuxuuna qaabilsan yahay qaybta lafaha oo orthopedic ku qaabilsan yahay insha Allah waxaan isku dayaa inaan interview qurux badan la soo duubo waxaan farxad igu filan idinkoo badan iga soo codsaday hospitaalada inaad noo soo duubto maanta farxad ayay ii tahay inaan idin soo duubo wax walba dhakhtar walba wuxuu qaabilsan yahay inuu idin soo duubo insha Allah taasaa isku ognahay Dr. Krishna Kiran qolkiisa especially dadka caafimaadka markuu appointment la leeyihiin ama markii ay markaas rabaan aragtidiisa halkan ayay kula kulmaan halka waxa u yaala sariirtii qofka qalabka kaga fiirinayay kuraasti dabcan sidar muuqda su'aalka dhan aragti waxa idinku filan maasha Allah waxa awards meesha saaran even though dhankan xitaa hadda imaano way ku wada jiraan dhankan ilaa dhankan kulli way ku wada jiraan marka waxa idin rajaynayaa insha Allah inaad wax badan iga faa'iideen maanta fiidiyoga waxa ku saabsan yahay dhammaan gabdhaha isoo weydiiyay Instagramka especially oo ay dhahaan intaas noo soo duub hospitaalada Hindiya sidee weeyaan hospitaalada Hindiya kee weeyaan hadaba hadalka iga qora MEDICOVER waa hospitaal ku qancaysan waa hospitaal qiimo jaban ah oo adiga dartaa lagu sameeyay qiimo marka soo dhawaada xayeysiintaas iga egta ilmo adeeryaalo aad baa idin salaamaya mar labaad isku soo noqonay soo dhawaada hello doctor how are you I'm good. How are you? I am happy that I'm having this opportunity to meet you personally because Thank you so I much. have seen so many patients that you have treated past. So I'm happy that I'm getting this interview from you. Thank Inshallah. you. Thank you. I have some questions that I want to ask. It won't be much, inshallah. So how many international patients have you treated before? So we treat around 500 patients per year. Okay. So 2015 onwards, we've been treating every year. So maybe 4,000 patients we've treated. So for those 4,000 Somalis will be there? Somali patients? Yeah. So majority of patients who come are from North Africa. Then we get patients from Central Asia and all that. About 50% of them will be Somali patients. Okay, can you tell us a little bit about robotic joint replacement? So around 5 years back, we started doing robotic joint replacement surgery at our unit. Previously, we were doing computer-assisted surgery since 2009. Okay. So now the computer-assisted surgery has been phased out and robotic surgery has been introduced. In a robotic surgery, we create a three-dimensional model of the patient's bone and make patient-specific plans for surgery. So we will feed data into the computer, make a plan, do a virtual surgery, and that is executed by the robotic arm. So we will be doing the surgery, but the robot will help us to do a precise surgery for the patient. Okay. sidoo kale waxay sameeyaan laftoo kale si waxay u sameeyaan technology ahaan ay lafta u bedeli karaan si kalena way ku hagaajin karaan sidaas ayuu doctorka noo sheegaya so the other question I have is can you tell us a little bit about what all wide range of orthopedic disorders you treat? So we have a full-fledged unit here. So we have a joint replacement unit where we do hip and knee replacement surgeries. Okay. We have a lot of patients from Somalia who come with failed surgeries as well. So we take care of them, which are quite complex and we don't get to see such cases in the developed part of the world. So, but because the logistic challenges and the healthcare systems there, some of them have really complicated problems and we've treated quite a few of those cases where there is a redo surgery of the hip or knee. Trauma cases we see where, the plate has broken or the nail has broken, infection. Yeah. Then we also have surgeons who take care of spine problems. We have full-fledged hand surgeon. We have arthroscopy issues. A lot of the guys from Somalia, I must admit, play football. Yeah. And they have football injuries and they come with ACL tears. They come from shoulder injuries. Yeah. And we do all those keyhole surgeries as well to take care of them. waa maqlaysaan waxa idin leeyahay badanaa dadka noo imaada Soomaali weeyaan sababta ay noogu imaadaan waxa weeyaan isagu wuxuu qaabilsan yahay maadaama uu qaabilsan yahay qaybta lafaha waxa weeyaan ardayda badanaa dhalinyarta kubadda ciyaarta jugta badanaa soo gaarto boqoshinta sidoo kale
inta way u wada siman yihiin oo dhakhtarka isagoo wuxuu u fadhiya qofkii patient oo yimaado inuu hore ka xareeyo treatment u sameeyo. So doctor, I will have another question if you don't mind. Are there some advantages which come with the high-end technologies available here? So definitely the error risk will be very low. There is no chance of error because the precision is around 0.5 degrees and 0.5 millimeters. So each patient will get a personalized operation which is specific to them. Okay. So definitely there is advantage. It's like GPS technology. Can you imagine a flight being operated without GPS? No. Nobody will look at the Gulf of Aden and then land in Mogadishu. They know it is Mogadishu. They land like that. Okay. Yeah. So technology is there to be used for the benefit, and what better way to use it than for the patient care? Because there is no scope for error. Each patient has to get 100% outcome. Yeah. wuxuu leeyahay sidoo kale badanaa treatmentiga ay sameeyaan technology inuu mar walba la xiriiro waa khasab because maxaa la dhahaya waxyaaba aysan iyagu arki karin technologyga isticmaalaan oo maaragta soo qaban kara isku soo qaban kara marka waxa u muhiim ah isagu inuu wax walba aan su'aal weydiiyo inuu si fiican ugu sharaxo maxaa yeelay dadka waddanka jooga inay su'aalahan oo kale ay rabaan inay weydiiyaan baa dhici karta marka wax kasta u baahan tahay hoos baa ka helaysaan. How are the Somali patients? They're very good patients. They're a little bit suspicious sometimes. That's what I find because they have the same question again and again, and probably because of the way they have been treated in the past. Yeah, they have. Yeah, so it's more insecurity rather than being bad. They're very good people. Yeah. And I noticed that they recover very fast. So they are much quicker to recover than Indian patients. Even the people who are 80, 85, we have done very complex surgeries on them and they are okay. So there is some good genes with them. They should maintain that and not lose it by eating McDonald's and Subway. So don't get Indianized. There's something right going for you with metabolism. Yeah, more of Philipka. dadka patientiga Soomaalida aad degdeg caafimaadku u baahan because waxa arkaysa dadka kale ay ka warkacayaan ka caafimaad badan hadii qalin lagu sameeyo ayaa ka hortagsanaya marka ma sha Allah dadka waxaan leeyahay ku dadaal caafimaadkooda waxyaabaha oo dadkeeda joojiyo inay joojiso. So is there any message that you want to tell? Sure, I just wish that the people who are so nice will elect a good government and then take care of themselves instead of fighting among themselves. And I really wish such a beautiful country. I visited Mogadishu. The beaches and all are very beautiful. I think the city and country must restore to what it was before. Yeah. I really hope. Thank you so much. Thank you for taking me to this. Yeah, I'm happy that I met you today. Thank you. MEDICOVER wuxuu kaalinta labaad ugu jiraa waxa weeyaan tayadiisa fiican iyo qiimihiisa hooseeya hase ahaatee waxaan ku baraarujinayaa dhalinyarta qofka caafimaad raba weyn yar kulli inay hospitaalkan iska soo register gareeyaan sababaha oo ah wax walba aad markaas tabanayso inay tayadaada bixiyaan oo ku bogdayaan oo waxa walba aad rajaynaysid inay kuu soo bandhigaan insha Allah. Hospitalka MEDICOVER wuxuu qaabilsan yahay dhowr farmood buu leeyahay anigu waxaan joogaa tii saddexaad oo waxay ku taalaa Hyderabad bay ku taalaa qaybtaas waxay leeyihiin facilities kala duwan iyo dhakhtar walba markaas kala duwan oo qaybtiisa qaadanaya isagu marka waxaan rajaynayaa insha Allah inaad nagu soo biirtaan oo aad hospitaalka kan qofka aad jeceshahay markaas aad noo keentaan halkan sida arkaysan waxa ku qoran the care you need the every stage of life marxalad walba oo kula joognaa camal oo kale insha Allah sasan idin rajaynaya soo dhawaada.